أصبح قرار. waxaa jirta islaamka ka hor magaalo uu ka talin jiray nin la yiraahdo Diqyaanos. isaga iyo dadka u talin jiray waxay ka leexdeen wadadii toosneed oo waxay caabudi jireen sanamyo ay gacantooda ku sameeyeen, kuwaasoo aan dhib iyo dheef midna lahayn. sidaasoo ay tahay waxay ahaayeen kuwa difaaca sanamyadaas, wayna la dagaali jireen qof kastoo isku daya inuu wax ka sheego ama dhib u geysta. waxaa soo baxay dhowr dhalinyaro ah oo ka soo horjeestay caqligooduna diiday inay u sujuudaan cidaan ilaahay ahayn. ilaahay wuxuu u siyaadiyey iimaankoodii, wuxuuna ku sugay xaqa. arrintii dhalinyarada ayaa gaartay boqorkii. aad ayuu uga carooday boqorkii markii uu maqlay dhowr dhalinyaro ah oo ilaahyadiisa wax ka sheegaya, diidayna inay caabudaan waxa uu caabudayo. isla markaaba waxa uu amray in lasoo qabto dhalinyaradaas, meel kastana ay ka raadiyaan. hase ahaatee uma suuroobin inay gacanta kusoo dhigaan. waxay go'aansadeen dhalinyaradii inay ka baxaan magaalada iyagoo u weheliyey ay wateen. waxay ka tageen guryahoodii, hantidoodii, waxay ka doorteen god madow oo ciriir ah, gudihiisana laga baqayo, iyagoo raadinaya raalli ahaanshaha ilaahay. markay godkii galeen, aygii albaabka ayuu jiifsaday, halka ay iyaguna seexdeen godka gudihiisa. qoraxduna waxay ka soo baxaysay dhanka midig ee godka, waxayna u dhacaysay xagga bidix. qoraxduna iyaga ma soo gaareen. intaa ay hurdeen waxay isku rogrogayeen hadba dhinac sidii qof caadi u hurda, waxayna ahaayeen kuwo qofkii ku soo baxa baqlin gelinaya. وأنام وحدي دونكم لكن قلبي سابح بالذكر مثل قلوبكم والله يحفظ خلقه المحسنين المتقين. يا فتية قد آمنوا لله رب العالمين طعيم ربك علا ترى العباد 309 sano kadib ayay ka tooseen hurdadii. isla markiiba waxay isweydiiyeen waqtigay hurdeen. jawaabtoodu waxay noqotay maalin ama maalin gelinkeed. waxay dareemeen gaajo. magaalada ayay u direen mid ka mid ah, waxayna kula dardaarmeen inuu dhuunto iskana qariyo dadka, gaar ahaan boqorka Diqyaanos iyo ciidankiisa. waxa uu soo galay magaaladii, wuxuu dareemay isbedel weyn inuu jiro, wuuna rumaysan waayey in waqtiga intaa la-eg uu ku imaan karo isbedel baaxadda leh. dadkiina isaga ayay la yaabeen dharka uu xiran yahay iyo lacagta uu sito oo ah mid waqti hore la isticmaali jiray. isla markiiba waxaa loo gudbiyey boqor muslim ah oo ka talinayay meesha lana yiraahdo Titosis. boqorkii wuxuu weydiiyey cidda uu yahay, meesha uu ka yimid iyo waxa uu u socday. wuu uga jawaabay, wuxuuna ku celiyey su'aal ah aawo boqorkii Diqyaanos. boqorkii waxa uu sheegay inuu ahaa nin daalim ah oo dhulkan ka talin jiray muddo haatan laga joogo in ka badan 3 qarni. boqorkii wuxuu amray inuu soo kaxeeyo saaxiibadii. نمتم ونامت عينكم وأنام وحدي دونكم لكن قلبي سابح بالذكر مثل قلوبكم والله يحفظ خلقه المحسنين المتقين. يا فتية قد آمنوا لله رب العالمين في كهفنا مؤمنين طعيم. dadkii magaaladu aad bay u soo dhaweeyeen nimankaas, wayna ka ducaysteen. wixii intaa ka dambeeyeyna waxay agtooda ka ahaayeen awliyo ilaahay, wayna xushmayn jireen. ilaahayna wuxuu kaga hadlay qisadooda suuratu kahf. أم
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا